بسم الله الرحمن الرحيم داود كنت soo dhawaado wareysi gaar ah oo la yeelan garyaqaan Guuleed Axmed Raac oo kamid ah garyaqaanada Soomaaliland anagoo wax badan ka weydiin doona arrimo la saabsan mudaharaadada iyo dimuqraadiyadda iyo diktaatooriyadda farqiga u dhaxeeya Guuleed ku soo dhawaad Saab TV aad iyo aad baa mahadsantahay Guuleed ugu horeyn dastuurka Soomaaliland iyo xeerarka Soomaaliland maxay ka qabaan mudaharaadada iyo baraanbaxyo dadku doonayaan inay ku cabiraan fikirkooda bismillaahir rahmaanir rahiim Somaliland kooxaashii markay goonistaaga ku dhawaaqday mid ka mid ah sababaha waaweyn ee goonistaaga ku dhawaaqday waxay ahayd inay noqoto dal dimuqraadi ah oo shacabku taliyaan si taa loo helo 2010 waxa la ansixiyay dastuur ah xeerka ugu sareeya Somaliland ku dhaqmayso dastuurkaasi wuxuu jideynaya awoodaha ay dawladdu leedahay qaybaheeda kala duwan sidoo kale wuxuu dhigaya xuquuqaadka aasaasiga ah ee dadka shacabku leeyihiin in dawladdu aanay mar raba taaban karinin labadaas ayaa aasaas qayb ka mid ah oo leedo qaybta xuquuqisaanka waxa ku cad qodobkiisa 32 in dadka reer Somaliland jooga ay xaq u leeyihiin aragtidooda dhiibtaan fikirkooda cabiraan in warbaahinta xor tahay iyo in dadku isu soo bax sameyn karaan si ay daroonkooda uga cabiraan isu soo baxa ay daroonkooda ku cabiri karaan wuxuu noqon karaa mid farxadeed iyo mid caro mid diidma iyo mid ogolaada wuxuu dano ahaadee laakiin dadku wixii ku jira inay cabiraan waa xuquuq asaasi oo dastuuriya oo sida dadku xaq u leeyihiin noolaadaan iyo inay socdaan iyo inay hadlaan iyo fikir yeeshaan ay xaq u leeyihiin aragtidooda maaragtay cabiraan oo isu soo baxaan waxay diidayaan waxay doonayaan inay dhiibtaan marka waa qodob dastuuriya oo ka mid ah dastuurka Soomaaliland ee dawladnimadeena ku dhisan tahay ee ku aasaasan tahay ma la oran karo bulshada reer Soomaaliland way bishaa in mudaharaadada ama soo bax sameeyaan saa u cabiraan waxay diidan yihiin ama doonayaan siyaasiyiinta Somaliland aala markay doonayeen inay mudaharaadada diidaan waxay ku cudur daaraan inaanay dadku aqoon u lahayn la mudaharaado laakiin taasi run ma aha waxaan ku ahayn oo cadeynteeda ku muujinaya sanad walba Somaliland waxa ka dhaca mudaharaado dhowr ah oo nabada isku soo baxo nooca uu yahay ujeedadiisu ma qeexday waxa qeexday isku soo bax inuu yahay waxaas oo dadku ay dibadda yimaadaan say daroonkooda u cabiraan marka waxa kamid ah soo baxyada kuwa lagu xuso maalmaha waaweyn statementkii mid kamid tahay 10 kun oo qof ee gobolada iyo degmooyinka dalka isku soo baxaan way soo bax nabadeed dadku wax dhiba ma geystaan wana dadka reer Somaliland dadka saas sameynaya waxa kamid ah soo baxyada kuwa ololaha oo ah kuwa adduunyada inteeda u badan sida Afrika meelaha qaar kood ay dhibaato ka dhacdo way xilliga dadku ugu caarada badan yihiin ugu xasaasiyada faraha badan inaga iyo ololo lagu jiro xiisado adag tahay oo dadku madaxtooyada hormarayaan ayay iska daynay dhagax ku tuuraan aan caadi ku tuurin dadku aragtidooda u dhiibtaan marka dadka waa dad ilbaxa waa dad isku soo baxay yaqaan waa dad mudaharaadada yaqaan madaxweynuhu markuu Guinea meelaha ka yimaado isku soo bax waa loo sameeyaa waa la soo dhaweeyaa dadka Somaliland dibadda u soo baxaan dhibaatana ma dhacdo marka soo bax dadkina way yaqaan inta saacadeemo waa isku baxna waa isku nooc ujeedadu way kala duwan tahay maxaa loo soo baxaya meel farxsan yahay meel la careysan yahay meel la dabaaldegaya meel soo dhaweynaya meel la diidaya waxaas waa issue kale waa ujeedkii waa objectivekii laakiin mudaharaada ma isku soo baxo isku nooc Somaliland uu ka dhacay dadkina si fiican bay u yaqaaneen sharciga ama dastuurkan muxuu ka oranayaa in ciidamada amnigu intay dawladtus ay sameeyeen doonayaan ku cabiriyaan dadku inay mudaharaad u soo bixin taa muxuu ka oranayaa moogayaan mid uu isla fahma sida adduunyada isku dawladtus kama access waxaan ku naqaan militariga dawladda ay soo hanjabayaan inay sameeyaan hadba sanado ay soo balxoofteeyaan marka waxaad arki doontaa Kooriyada Koonfureed oo Mareykanka u yeeratay si ku waqooyi uga hanjabto laakiin dal magaalo dhexdiisa isku dawladtus oo ka sameeyay booliskiinu anigu maan arag maxay shaqadu tahay boolisku in la fahmaa shaqada boolisku inay ilaaliso sharciga fuliso sharciga iyo ku fulinaysa cidkiisu kulka jibisa law enforcement agency weeye waa hay'ad sharci fulineed oo qaanuunka ku shaqeysa marka inay dadka u hanjabto iyo inay tahay waxbaan sameyn doonaa iyo waxaan la sameynin maaha shaqadii booliska ahayd oo yeelan lahaa maaha xuquuqda dastuuriga dadku leeyihiin boolisku inuu ka hortago uma xilsaaray inuu fuliyaabo u xilsaarayeen mesela dadku markay mudaharaadayeen inay caawiyaan nabadooda ilaaliyaan nabadda dad kale inay ilaaliyaan kuwa dhibto haysatay ama ku faamo wax u geystaan inay caafimaadkooda ka shaqeeyaan shaqadaas ay leeyihiin dadka dhex maraan laakiin si inay soo taagaan waxay awood u leeyihiin maaha waa mid kamid ah waxyaabaha inaga qaldan oo baahan la saxo siyaasiyiinta ama hogaamiyaasha mucaaradka xilliga ay mucaaradka yihiin waxa ay doonaan bay sameeyaan way mudaharaadaan waxna way diidaan markay kursiga u sareeyo fariistaan wixii ay shalay diidayeen ama ay sameynayaan way ka hor yimaadaan wax ka duwan bay ku dhaqaaqaan taa maxaa la oran karaa وسؤال هذا مهم لأنه مد كمذا صوابها إن هلقن كمدة دير وجود دولة محاسيات بروح كمذا إنه عيد كل دوان عبرين تي حق شغلين تي فلالك عن ديمقراطية حين لقى هرتا وحن آخره شليته على برنامج كيسي أسداد أوركي أسنم وصل على ما يدلك وصل على ما برنامج كاس كي لقوا أنسحي شروينه كنت قال بقول له سجاش كوافرين هيد بلق بدك وحق قدوميه وها كوسح عن برنامج أسداد كان آخره مسبح عبد المدحون حسن الله عنه مركها قدوميه shirweynaha ahaa waxyaabaha ku qoran aad bad u helaysaa quruxdooda inay u dagaalamayo raqaqo in xorriyadda dadka loo soo celiyo xorriyadkooda asaasiga kuwa madani nidaamka dimuqraadiga
in caburinta la diido waxaasoo dhan baa ku qoraa hadda oo dalkii xoreeyno maxay siyaad barhaani nala joogin qaar ka mid ah dhaqamadiisii shuruucdiisii lagu dhaqmaa runtii waxa gaf weyn bay ku tahay halgankii la soo galay dadkii ku dhintay iyo noloshii la soo maray wixii la sheegayba talabaad waxa weeye dadku markay mucaaradka yihiin xukuumadda jirta waxbay ku dhaliilaan qaradaadkay samayso ee kuwa ka mid yihiin falalka aan dimuqraadiga ahayn xorriyadaha dadka cabir wax u geysanaya way ku dhaliilaan muddo korintu ka mid tahay dadkoo la xidhaa ka mid tahay mudaharaadku la diidaa ka mid tahay waxaan xasuustaa 2008 xisbiga kulmiyo mucaarad xoogan ahaa in dib badan loogu geystay in aragtida diiwaan mudaharaadaan dabeedna ay suuqyadu soo baxayeen oo dadkooda la xilxilay aad ugu dhaliilayeen maanta iyaga taliya in isku dhibtii laga cawdo ma ahayn anu waxaan isleeyahay waxa keenaya waxa weeye marka hore mabda kama aha siyaasiyiinta Soomaaliland waxay ka hadlayaan waa un ku afku kacsi iyo ku xumay qofka kursiga ku fadhiya markay kursiga fadhiistaan waxa la qurux bataa wala macaanaada wixii sameeyeen jireen qofkii kursiga ka hayay taasina ma wanaagsana waxa wanaagsan in waxa in heshiiska ku nahay ee dastuurka lagu shaqeeyo waxaan heshiiska ku nahay waa qofka madaxda in la dhaliili karo waxaan heshiis ku nahay qofka madaxda inuu leeyahay madaxweyne cayiman oo dastuuri ay tahay markay ka dhamaato inuu kursiga iskaga tago waxa dastuurkeena ku qoran inuu isku soo bixi karo inuu isku mudaharaadi karo in qofka mudaharaad laga soo horjeesan karo isaga in loo mudaharaadi karo la soo dhaweyn karo hada dib Soomaaliland waxa weeye madaxweyne markuu isagu doonayo waa loo mudaharaadi kara xataa dhibaato ka jirto waa la soo dhaweyn kara hadaad adiga kaliya tahay oo ku mudaharaadaya marka saar goornaya amaanka waxyeelaya amaanka ay dib u geysanaysa amaanka waxaan dib u geysan qof aan leeyahay kuma doonayo oo ku diidana waa xuquuq dastuuriya aan leeyahay marka aniga taladeedu waxa weeye haddaynu aragtiis ku xukunayo qofka fikirkiisa iyo dareenkiisa wuxuu ku careysan wuxuu ku faraxsan yahay taasi dhibaato inagu hagaysa laakiin haddaynu waxaynu ku heshino dastuurka aynu ku wada shaqeyno way inoo qurux badnaanaysa guulad maxaa ka mid ah farqa u dhaxeeya dimuqraadiyadda iyo diktatoriyadda dadku qaar baa mooda diktatoriyaddu inay tahay oo kaliya qofku inuu kursiga xoog ku qabsado taas waa diktatoriyad in ama ciidan ama koox intii afkan biyo dalka xoog ku qabsato laakiin diktatoriyaddu waxa weeye dhaqamo weeye waa falal ay dawladuhu sameeyaan dimuqraadiyadduna waa falal ay dawladuhu sameeyaan dimuqraadiyaddu dadku shacabka iyaga dawladdu u taliya dawladdu shacabku ma taliso halkaas dimuqraadiyadda afku ereyga afka Greega oo macnaheedu yahay dadka taliya dadka talada iskale dadka xukunka iskale dadka madaxda ah dadka u shaqeeyaan oo mushaar ka qaataan waxay ku shaqeeyaan rabitaanka iyo doonista shacabka ku shaqeeya laakiin diktatoriyaddu waxa weeye qofka madaxda ah isaga dadka u taliya isaga xukuma waxay doonayaan isaga ku qasba waxaanay doonaynin maaragtay uu fuliyaa dabadeedna dadkii iyo dhibaato kala mudnaan shacabka kala mudnaan marka meelaha diktatorka dadku ma hadli karaan dawladda ma dhaliili karaan haday dhaliilaan waa la xidhaya meelaha diktatorka dadku suuqa iskuma soo bixi karaan way haday isku soo baxaan diktatorku madaxu fujinaya sababtu waxa weeye diktatorku dadku ka baqa maadaama xoog ku haysto oo aanu dadka ka haysan rabitaan dadku shaki ka qaba laakiin nidaamka dimuqraadiga lama rabo dadka shacabka inay kala shakiyaan waxa raba shacabka inay fikirkooda cabiri karaan hadda wadamada dimuqraadiga waaweyn maalin walba maalin walba mudaharaad baa ka socda dadku waxbay diideen qof waxa laga yaabaa qof keligii iyo caruurtiisu intay soo qaataan boodhor inay maayirka magaalada ama madaxweynaha ku mudaharaadaan agtooda ku dhigtaan qofka cidina ma qasbayso marka anigu saska laga qabo mudaharaadka waxaan ku qanacsanahay markaan cadeymaha hore eego inaan ahayn sas amniga ah iyo haysas la diidayo in dadku aragtidooda dhiibtaan dad badan soo baxaan marka waa cabsi maamul ee maaha cabsi amin ma waa qofka reer Soomaaliland ee shalay 18 May ordayay mudaharaadii maanta markuu soo baxo maxaa cadow ka dhigay shalayna ka dhigay qof wanaagsan ilaa Hargeysa dadka la leeyahay waa ka mudaharaadayaan dad laga soo ururiyay dalal kale ma aha oo alien oo China iyo Jarmalka laga keenay waa kii shalay 18 May ku mudaharaaday waa kii madaxweynuhu markuu giri ka yiri mudaharaaday waa kii maalintii dhaweeyay Ingiriisku Soomaaliland dooda ka galay dadkii mudaharaaday booliiskuna u jaasiyay inuu ciyaareen oo isla dadkii dad kale ma aha marka dadkaas in lagu yiraahdo ma garanaysan mudaharaadkan waxay rabtaa in la ceebeynayo shacabka reer Soomaaliland dikordinta hadda jeel loo sameeyo madaxweynaha la doortay oo dadku soo doorteen saameyn maxay ku yeelanaysaa dimuqraadiyadda هذا شعب برابها كل فتنة عند الإبل marka gaaladan waxay tahay Afghanistan waxay yiraahdaan elephant in the room dhibaatada ugu weyn Soomaaliland ka jirta waa wax la hado mudkursiga maanta ma inaan muranin hadaan mudkursiga dhici lahayn sababtoo 2012 markii doorashada golaha deegaanka la galay waxa loogu talagalay xisbiyada 10 sanadood ay jiraan oo macnaheedu tahay in golayaasha deegaanka doorashadooda ay dhacdo sanadka 2017 sanadka 2020 doorashadii kala golaha deegaanka ay dhacdo marka muran muu yimaadeen waxay ujeedadu ahayd doorashadii madaxtooyada in 2015 dhacdo maadaama tii ka hor 2012 dhacday doorashada madaxtooyada ku xigtaa waxay dhici lahayd 2020 marka sanadka 2020 dhibaato ma jirteen way doorashada madaxtooyada way ka horeen 2020 noqon lahayd doorashada golaha deegaanka ururada lagu furayna maanta dhici lahayd muddo kororsiga aan dhibta keenay muddo kororsiga wuxuu inagu sameeyaa xasilooni darro siyaasadeed iyo amni oo joogto ah inuu haya 5 sano ama 4 sano kasta muran baa taagan dalkii waa loo baqaya waxa loogu baqayana wax kale ma muddo kororsi baa jira baarlamaankii waa kororsanaya guursi waa kororsanaya deegaanka waa kororsanaya madaxweynaha waa kororsanaya falkaasi waa fal aan dimuqraadi ahayn waa fal qeyru dastuuri
dastuurka Soomaaliland qodobka 83 waxa ku qoran madaxweynaha waxa loo kordhin karaa oo kaliya haday dhacdo dhibaato amni darro security reasons amni darro dalkeena kama jirto horan uga ma jirin iyadoo aan ka jirin baa iska korsanaya marka waa sheekada ay tahay inaynu soo gabagabayno qof waliba muddadii la doortay inuu dhamaysto doorasho galo hadaan galeyna inuu iska tago golaha deegaanka muddadooda inay ku dhaafaan golaha wakiilada muddadooda inay ku dhaafaan qofka madaxweynaha inuu ummadda ixtiraamo soo dooratay oo ku dhaafo marka xilkiisu ka dhamaado bal ha soo helaan Soomaaliland cid u doodaysa muddo kororsigu meel dastuur leh oo dimuqraadi ah aan la si xoog sheeganaynin oo qof inta 5 sano la doortay 2 sano dheeraad iska sii fadhiyay qeyr dastuur ahaan xaqa adduunka lagu arko wax dhici kara ma qofku madaxiraad baa leedahay madaxiraadku ka dhamaaday dadka ku soo noqdayna doorasho kale dabeedna waxay noqonaysaa wixii wax joogta ah bay noqonaysaa periodiga muran kama imanayo laakiin si maalin walba marka la kordhiyo maalin walba dhibaato ay haysan kartaa marka 5 sano kasta waxaan ku jiraynaa muran iyo khilaaf iyo saysasho hadday sidaas tahay qodobka dastuurka ee muddo gudida ku jirta miyaan loo baahnayn in meesha laga saaro maadaama nidaamkanu yahay mid dimuqraadiyada oo hanaankii doorashada dimuqraadiyada aynu qaadanay qodobka marka hore laguma talagelin doorashada lagu kordhiyo wala abdiis kaliya ama si xun baa loo isticmaalay qodobku wuxuu ka hadlayo kaliya amni dar waligeedna amni dar kama helin ka qofkii fikir duwan miiska soo fariisto waxa la wixii doorashada lagu kordhinay qeyr dastuuri bay falal qeyr dastuuri ay ku fadhiyeen madaxweynayaashii hore dalka Soomaaliya hay'adaha hadiisiyaan yahay muddo kororsi sameeyay Muuse Biixi Cabdina dumaanta korsada fal qeyr dastuuri ay ku kordhinay waxa isagana u qurux badan taariikhdiisana u wanaagsan inuu muddada doorashada intuu qabto iskaga tago inuu noqdo madaxweynaha hore ee ku qabsada sifa sharci ah oo dastuuri ah maadaama si xun loo isticmaalay in meesha laga saaraa wanaagsan oo leeyahay qofka maalin kuma dirsan kartid waxay ku doodaan hadii madaxweynaha loo kordhin waayo vacuum baa dhacaya ama barnaamij dhacaya ma dhacayo dastuurka ku qoran tahay hadii madaxweynuhu iyo madaxweynuhu kursigiisu dhamaado sababta wax kasta ha ahaatee cidii kursiga qaban lahayd dastuurka ku qoran waa gudoomiyaha golaha kursiga qabanaya doorashada dalka gaarsiinaya marka qofka waxyaabaha khadaya waxa kamid ah qofku iyadoo kursiga ka dhamaaday mar haduu ogyahay inuu kursiga iska sii fadhigi karayo sabab doorasho u qabtaaba ma jirto madaxweynuhu ma haduu sii joogi karo doorashada ma diyaarinayo baarlamaankii ma haduu ogyahay doorasho loo qabanay iska sii fadhigi karaan xeerarkii u baahnaa looma diyaarinayo marka dhibta weyn ee haysataaba waxa kamid ah oo ugu weyn oo kamid ah mashaakilada siyaasiga ee haysta muddo kororsiga qeyb dastuuriga ugu dambeyntii guuleed xilli kasta madaxweynaha marka la doorto xilli dhamaadkiisu soo gaaro dalka buuq iyo sawaxan baa ka bilaama inta xilligu caadi yahay xagga hore kama dhaco laakiin dhamaadka xilliga xukunka madaxweynaha markuu gabagaba ku dhow yahay loo diyaar gareeyo doorashada buuqeega ilaa keena sanad kastaba intaan Soomaaliya joogna arintaas maxaa sabab dooran kartaa waxaan loo sabab baa kaliya mid waxa weeyaan dhaqankan dib u dhigista ee last minute-ka ama marka u dambeysay in la diyaar gareeyo dhaqan Soomaaliland ay leedahay qaldan doorashada dhacaysa 2024 hadii jirto in hadda la sii diyaar garooba laakiin wax walba la sugayay waxa la sugu gudiga doorashooyinka ma shaqeeyaan way iska fadhiyaan waxay shaqada bilaabaan dhowrka bilood ee u dambeeyay sanadka doorashada kormarkaas diiwaangelinta la sameeyo la ororda waxay shaqo joogtaa inay noqoto doorasho walba xilligeeda loo sii diyaar garoobo taas waa mid talabaadna waxa weeye madaxdii mar hadii og yihiin kursiga iska fadhiyaan aan waxaan aaminsanahay in iyagu laftoodu qayb ka yihiin shaqo bilaabmin way doorashada yaa qabta baarlamaankuna ma qabto maxkamaddu ma qabto fulinta qabata xukuumadda qabata gudoomiyaha yahay madaxweynaha iyo xukuumaddiisa hadii iyagu daacad ka yihiin doorashada la qabto dadaalayaan shaqada hore loo sii bilaabaya way ordayaan hadii niyadda ku hayaan muddo korsina dib u dhac bay sameynayaan waxa laga gudbi karaa Soomaaliland inay inta wada fariisato sidan ku socon kari maysa inta la shiro waxyaabaha dimuqraadiyadda iyo dastuur xumada keenaya in meesha laga saaro in kordhintu ka tahay xarigu waad hadashay jeelka ii soo galay kamid tahay la joojiyo in dadka mudaharaadka loo diiday kamid tahay xisbiyada dhexdooda ay tahay qasab in dimuqraadi laga dhigo iyagana oo laga daayo nidaamkan kaliya taliska qof iska sito xisbigi waxyaabahaas oo Soomaaliland ay fariisato inay saxato la diyaariyo muddo dheer laga eeg Soomaaliland dhibta jirta waxay sameeyeen painkillers bay qaadanayaan xubin baa la qaadanaya hadda xisbiyada jiq bay isku yihiin maalin dhow gudiyaa laga yaabaa in la saaro heshiis yar in la galo arrinteen la dejiyo deedna la iska dhaafo waxaana garantiina dhowr sanadood kadib inay soo noqonayso marka wax xumajin baa la qaaday cudurkii lama daweynay haddaan cudurkii iska daweyna maalin walba xumajin inuu miisatina cudurkii uu kala joogaa cudurkii ku jira Soomaaliland way la daweeyay intaas waxaan ku soo gabagabeynaa wareysiga gaarka aan la yeelanay Guuleed Axmed Dafaac oo kamid ah garyaqaanada Soomaaliland Guuleed aad baad mahadsantahay